قادن وحنا مسكرين بل أساقهم بوحيين الهيدو أبتيجي سفرية هرجي سفرية أنا كوره الرأيو أيا سو عايلها هدول له بتلام بكسنت هدول له سفال لما كسنت أيا أبتيجي سجره وفرية أيا سو عايلها هدول له إيش خاتم عليه هذا لا أنا أبتياش سو جساك لا فرية أيا سو عايلها أنت إساقيو عد كلام اللوج بيب مركا تاسي ناراتيف كاسي ما أهمد ما أنت كهبون فرماتشو عذر لوجو دارو أما لو يرهدو إن وحو كسر هرجس قديد فرماتشو أنا مريحانة قديد مريحان ماشي كتشوجينا واقناي قبل الذهب كذا نوسو كذا يا مريحانها فرماتشو ولا ليس أها مرنا إننا بقى يا أنا قاعد نحذي أنا نراكبها كيسة حسن ومدحويناه سقال بلاد اللي يكون قاعد هذاني وأنا قال لنا مدفع لا لو قراعي وقولها كاريا إسماعيل عمر قلاني جينية لا تشرع ما ملكين السومال لأن له شيء بنا لها ما رد على شجنا سيدا بقوليستوه وكما هذا كورباني الشاق قوليستوه وبقرك مركات قوليستين قف كستا وقلب استاغيا وقف معانينيا هدي على كوري هاي سولو كلي مركات قول دريسنت هاي أما آليتين أما لوك تالدنا والله يكره عليا ومتكي مركا لو أركي إنه قوليستي هاي ومدفع عيسو شقين أيو أي لا سفريا وهذا وقتها شلي مدحوينه حسن iyo xukuumaddiisa iyo wasaarihiisuba inay nagala safteen ninka la yiraahdo musabix oo ay lahaayeen nabadda juuca ka daaya la heshiiya maamulkina la heshiiya gobolada waqooyi maamulka Soomaaliland ha heshiiyaan bashana lahaay laakiin marka anagu guuleysanay dhiiga hurnay daadinay dagaalanay awoodda isticmaashay qof marka awood leedahay dadkuna waa ku jecel yahay bini aadanku waa ku jecel yahay ilaahay waa ku jecel yahay qof wax kas dunida wax saaran ma ku jeclaanay marka daciifto awood la ahayn cidna kuma jecla tusaale wax ku siinaya labada koox dhalatay ee walaalaha waa dhaqan aan Soomaali aan leena labadooda waxa la jecel yahay labada koox dhalatay adigu koox dhalatay kan wax haysta ee lacagta haysta ee awoodda leh ayaa jeceshahay inaad ku faantid soo dhaweysatid midka dayacan ee dhulka yaala ma jeclaanaysid waxna kuma tari karo sababtoo ah dan aad ka leedahay kuma fulin karo taa waxa oga dhignayn magaalada madaxdeena xamar iyo xukuumadda ka jirtay markasta waxay garab istaagaysay ama la jirtay cid awood leh ma ogtiin maanta hadii Xamaas guulaysato oo Israa'iil ay hawada ka baxdo inuu Mareykanku soo dhaweynayo Xamaas ma ogtiin inuu roog casuf fiirinayo ma ogtiin in Washington lagu casuumayo ma ogtiin laakiin inta ay tabaaraysan yihiin dhibaataysan yihiin iska daa Mareykan iyo Ameerika iyo Ruushia kuwa ayaga la dhashay ee dhiig ay dhacaan kala wadaagay ee Carab ahaa ba hoos u fiirin guulaystuhu hamoodin maanta ninka ku soo dhaweynaya marka guulaystay inuu jacayl ku qabo kii shalay ku buusayeen nacay kuma qabin shalay Xamse Xasan nabuusayeen oo lahaayeen la heshiiyo walaalihiin Somaliland nacayb kama aysan ahayn ana hadda oo daaray waa dhaqankeena Soomaali waa dhaqanka Soomaaliya waa dhaqanka dunida ka jira guulaystaha markasta awood leh oo la soo dhaweysta marka Xasan jacayl noo hayeen anaga guulaysanay dhiig daadinay naftayda u hurnay dhulkayga qabsanay waan ku qasban yahay inuu nala macaamilo sida dawladii caalamka cadaadis ku saaraya caalamka waxa laga soo qaado iyo dawladnimada Soomaaliya la siiyana ma aha wax Xasan leeyahay waa wax lagu xisaabtamo halkaas maamul baa ka jira dad baa jooga maxaa u haysaa leeyahay marka inuu maanta kala macaamilo oo deegaanadan masiirkooda madaxweyne firdhiyo hoos fariisto danta khasabtay laakiin hadii jiritaan waxa la yiraahdaa maalinta dhulka taalay wiilka ku garab istaagay maalintaasna waa ognahay farmaajo maanta la caayo leeyahay SSU maalin ka aamusay su'aal la weydiiyay maalintii madfac ku dhacay xabadu ku socotay qoraal soo qoray oo lahaa dadka shacabka ah laga daayo dhibaatada halka madaxweynaha Xasan iska daayo madfac soo qoray oo lahaa aan la heshiisiyo musabix narrative-ka ah farmaajo SSC nacab iyo farmaajo rees u jawaab waayay intaasaan ka leeyahay sidaba guulaystuhu waa boqorka guul daraystuhuna waa bidda inta hal ogaado maanta shalay markii aan xabada ku socto anagu aan liidanay erir Soomaaliya ahaayeen laan dheerayaal bay ahaayeen Cabduqaadir Boos rag baa u sacbinayay
إسحاق إثنود ينسي قرباء أدغال اسمه ما تمانع أدغال البوس ما أنت إسحاق وعاي صوبته إن سفكت حتى ركلين بوجي إن نثيهم بوجي إن بابين بوجي إن الأود دي الحياة أنا وقاضي بوجي إنه أنا نسول لو ويستو ده تساكوتش ده صوبته وادك دون تاس أنا وادك مركا إن عد كستا حتى بصومالي حتى ما جنب أهاتي عد كستا ما أنت كهوست ما دكتور هذا وأروح بانتهاي إيه خاتمة ويا ما مر بانتهاي معنى هذا معها شعيل وكتش عراضي شلي بواجب تدوك شعرانيو معنى هذا وحوي إنه دنك اللي هي قول استعتهاي أود هذا وقيمي أركينا إن صب باوتهاي أنا الحجر كريم فرماشنا وحنا لي مدحوينه أنا كنت شعلنا هاي مدحوينها يجي باتهاي إيه سينه وأقول جاجي ومتك لانيرادي خير كاجا هايديو قبلها جبا أيدي جوش بيه تانكيو ما كل يوم نعرف كاس إذا كنت ليا دارود ما هو واحد لقى حقناته عبد القادر بوس فرينتا جارسي شعيل كومان تأي قبوه وعمدا أنا كان صدي كلجي معها دنيا ضربة ما تيجعل شرنا إن عديت ده ست قالوا كاس هل كاس أكو هذا قالوا كلا دول يستاجي واحد ويا مجال بنتلان ويل كير كاي هاوش صاي دي بان كوري جاية بنتلان دور شوينكي إيو أديالك يحاكوا سو فوله دور شارك دور أول ما موجودة سيدا بدحوينه عديي حكومة عدي صي ويل كير كهاي هذا يحضر ورشة سد حبين وحسوق لي مجال اللي هذا جروه هو بيال لو دقيقه أو كوي بوساسو لو دقيقه وها سينايا تاتيكوين يا ديريغري سينايا عطوشولي يا رجله او ليهي انا كاقان نكان go'aan kaba soo laabto hoobiyaha u rakiba hoobiyaha maxaa sameeynaa marka shalay waxaad ogtiin boosaaso markay xukuumadii iyo ciidankii isagu watay ay isqabteen in diyaan markii xabad lagu ridaba wuxuu ka duqeynayay niyo boosaaso uu duqeynayay iyo rafi raaxu duqeynay oo caruurta ku leeynay hadda wuxuu taagan yahay marka haddii aad rabtaan awood aad dawladda kaga hortagna ma hayno garow waa la fariisanayaa hoobiyaha loo rakibaya xabad hadduu dani kugu soo rido shacabka ka jaraysa sidii boosaaso kale markaasuu dani ku khasbanaanaya inuu xabad joojiyo markii shacabku qayliyaan waa waraay dhiigay dhaawac is dhaafo waxgarad ku qayliyaan shacabkii baa la xasuuqayaa la yiraahdo markaasuu dani joojinaya xabadda sidaydii oo kale tabtaas kaartadaas u dhisaya oo u hirgashay oo uu ku aruurinayaa catooshoolay dad aan garowe iyo rajo ka qabin ayuu hoobiyaal hubkan ayagu way haysteen laakiin hoobiyaasha ka dhimana ayagu reera ma ahayn nimankan garowe degan ma ahayn niman hoobiyo ugu talagalay inay shacab ku duqeeyaan laakiin falsafadan dayaxdal uu shaaibiyay suuqana galiyay haddana hoobiyaashiina wuxuu ugu keenay garowe waxaan arkay maanta boqor burhaan boqor muuse oo garowe yimid xogta u yimid xog badan kama hayo walow suldaan garaas soo dhaweeyay oo uusan soo dhaweyn islaamkii meeshaan متوبة كل رجل شري الأورنج شري إسلام عيسى إسلام محمد ما سولوين لكن السودان كان سولوين مركا ما هو يمد إنه ويل كيس سير كاي اللي يراه هذا ده حضر له شيء إنه ده مان لو باصار شلي هو بيها كوجو بتاعي توش جروا هو بياش إنه كقادو يمد مشير كانوا يمد دي بانك الصو فرقين دونا إن شاء الله غير جرونا دنتوا وين يقطعن وهرتشينا يا أو إسكا قبطان على الشغل استياشة بيجنر كأه رباه إن الشعب كدي جوده كجناح صلاة. قالوا كاسنا هكذا كتير. قالوا كصدق حال عبد الاستاذ يحوي قال كأيو وحال وقف صدي إن الدين عند الله الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحافظ يصوم عليك رحمة من بعد كف صدي ما أكرم. ويل يرى أو كوبي 8 سنة شري أيام كف صدي وهدنا للدري. وأقول أنتي حلال صحيح علي. إن مال كام أو وشد قلي مال هذا أو أدينا كونفورت يوغي الصقلان أو كله. أجاز كام كياله. ayaa wiilkayga lagu kufsaday waa la soo qabtay 14 nin ayaa la soo qabtay way ka badnaayeen markii hore sodomeeyay ahaan dadka la soo qabtay oo kaamka laga soo qabtay laakiin dad tuhuma galeen oo diyaarku cadeymo tuhuma loo helay iyo dad si fiican looga shakiyay 14 ayaa lagu reebay intii kale wala sii daayay wiilkayga waxa laga qaaday dhiicaano ama laab saaw taqaanaanba waa laabkaasi waa waagi caashay la kufsan jiray sidoo loo helay nimankii kufsaday dhiicaan baa laga qaaday ayagana dhiicaan baa laga qaaday baaritaan baa socda wiilkaasina cadaalad buu helayaa xukuumadda Puntlandna si weyn ayay gacanta ugu haysaa 14 kan wiilkaas wuxuu ka soo jeedaa beesha Jareerweyne 14 kan loo qabtay ee hadda xiran iyo sodomeeyay ahaayeen kulligood waxay ahaayeen
isla beesha jaraweyne ahaayeen oo kaam barakacyaala dad ku nool bay ahaayeen wixii sidoo ka dhacay laakiin 14 saacad la hayaa oo laab laga qaaday oo qaybtood waalidka wiilku dhalay cadeeyeen in dhowr jeer u dhaarteen wiilkeerka dabagal lagu hayay oo adoo cadeyma waalidku keenan mushak iyo baa lagu soo qabtay inta badan dhicanaas laga qaaday dhicanaas laabkaana ayaa laga warsugayaa Puntlandna waxa kaliya lagu rajawnaa waxay tahay oo boqolkiiba Puntland Soomaaliya waa meesha kaliya laab leh oo dhicanada lagu qaado oo isbitaalkeedu u qalabaysan yahay oo biri ama saad dambe ay soo bixi karaan laabka dhicanadaas xogaha iyo macluumaadka laga helo marka wiilkaas waxa leeyahay cadaalad xagga Allah taala cadaalad Puntland baa looga baahan yahay cadaalad waxa looga baahan yahay deegaanka galxay looga baahan yahay waana boqolkiiba waa helayaa dadkaasina waa la hayaa dadkii inta badan shakiga balada dhaliyay waa la hayaa wiilkaas wuxuu ahaa bees jarweyne 14 loo hayana waa bees jarweyne kaamku wuxuu ku yaalaa washid galay meel u dhow oo yiraahdo magaceedu waa ilaawe buu ku yaalaa kaamkaasi waa kaam barakacyaal buu kiiskaas ka dhacay barakacyaashii saddexdooduna hawshu ka dhacday sida ayaga laftooda cadeeyeen oo dadka inta badan la soo qabtay waxa gacanta ku wada fiiqay dadkii isla wiilka familkiisi iyo kaamku ku noolaa hawshaasina cadaaladeedu way socotaa laabkeedii waxa dhan waa loo diray dhaqaatiir baa gacanta ku haysa amnigii baa gacanta ku haya wiilka ka Allah u naxariistaan leenahay dadkii ka baxayna waa u tacsiinay waxaan leeyahay saqiir aakhir Allah idin kaga dhigo idinka samir iimaan Allah idin ka siiyo waan rajaynayaa cadaalad heshaan cadaalad waa fiina heshaan ilaahay agtiisa cadaalad taalaay qoomkan arrinta noocan waxaan aad ka waqti ugu galiyay oo soo qaatay waxa weeye waxaan arkay qolihii reer abaarso oo leh gaalkacyo labadii gediba galmudug iyo Puntland ba ku caayaya wiil la kufsaday iyo maqnuudnimo ku caayaya baan arkayay taas ay u kaliftay inaan xogta resultiga raadiyo cid wiilku ahaa inaan qabiilkiisa wiil yar dhalinyaraayo diyaar ku leeyahay Puntland meel kamid ah ku nool ama galmudug ku nool ama arrin Soomaaliyeed ku nool inaan qabiilkiisa sheego reer hebel buu ahaa taas ay u kalifaysa inaan ka hortago war xumada ay la taagan yihiin reer abaarso sawir bay soo qaateen oo ay leeyihiin sawirkan waa kuwa nimankii wiilka qabsaday ay leeyihiin sawirku waa midkan waana 2021 weeye waa argagixiso lagu qabtay Muqdisho ayay sawirka soo qaateen leeyihiin dadkani waa jileec oo ma aha jeerma marka sawirkiina waa kaas ana ka daba tagay meeshan waxa fadhida sirdoon security fadhiya meesha ka daba galaan meel kasto ay galaan reer abaarso nin keeni kara halkan fadhiya aad baa idin salaam inta ku soo qabaya qubna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh ciao ciao